xeryaha qaxootiga ee Dadaab waxa ku nool dad dan yar oo aan haysanin waxay ku afuraan ama ku suxurtaan bishan barakeysan ee Ramadaan kuwa ugu sii nuguli waa waayeelada aan lahayn cid ka caawisa dhinaca nolosha. Caasho Xasan Cali waa 83 jir ku nool xeryaha Dadaab. dad waxay ka leedahay nin dhimirka ka xanuunsan iyo gabar xaas dan-yar ah oo aan waxba ku kordhin karin. maalintii tobnaad ayay sooman tahay mana haysato afur iyo suxuur. dadka Soomaaliyeed ayay ka codsanaysaa caawimaad. nin waalan baa ii jooga anigana 80kayga wuu go'ay boqolkii wax yar baa iiga dhiman. afurna ma haysti garab qabasho kalena ma haysti. meeshaan joogaa aad baan u tabaabcaysnahay. maanta 9 bay tahay soon 9ka bari waan soomanahay. afurkaygana garab weeye wuxuu yahay ilaahay baa og boqorka og. marka dhibaatada weyn baa haysato wax hadda maanta dal iyo dibad iga shaqeeyana ma leh. ninka waalan yaan gacanta ku hayaa. islaan iyo ilaahay iyo hay'adaha way og yihiin. anigana waa tabcaan baan ahay qofkan waayeelka haddana sooman yaan ahay. marka dadka waxaan ka codsanahay muslimka ee walaalaha naga inay tabarracad oo dal iyo dibad jooga inay tabarracad ii soo suubiyaan. hatta dacas aan ku socdo ma qabi. waxaan u baahanahay dal iyo dibad dadka muslimka ee ummadda ilaahay ee shahaadato oo soomayso oo salaadayso inay wax ugu soo taraan. hooyo Caasho waxay ku jirtaa guri yar oo cayn ah oo aan celinaynin roobka iyo dhaxanta midna. iyada oo xilligan da'ayo roobkii xilliga gugu waxay sheegtay in hooy la'aantu ay tahay baahideeda ugu daran. guriga aan ku jira roob iga maceliya waa daash xun oon haddaba iska dhex fadhiyo. roobka habeenkii hadba dhinac waan u korkoorsadaa sidaa iyada u dhibaataysnahay. hataa tooshka ima heli kari. gogasha aan ku saaxdo joodari ma haysto. katiifad xun iyo aroorgeed baan ku saaxdaa. aroorgeed oo meelahan laga soo jaajaafay yaan ku saaxdaa. gogasha katiifad baa ii gogna dhammaado eber. Maxamed Nuur Maxamed waa 77 jir. waxaa isaga iyo 4 caruur oo rajooyin ah oo uu dhalay ay ku nool yihiin xerada Xagardheer ee Dadaab. wuxuu sheegay in waxa uu ku afuro ay u keenaan deriskiisu. dadka walaalihii Soomaaliyeed ayuu sheegay inuu uga baahan yahay gargaar iyo garab qabasho gaar ahaan xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. islaamka waxa Soomaaliyaankan lagu jiro wax islaamkaas noo soo qaraamo kuwaas aan ku noolnahay aan ku afurnaa. walaaliyaalka Soomaali ee waxaan u baahanahay inay no kaalmeeyaan adduunyo aakhira anaga dacweyna ayna kaalmeeyaan guri ay heensaan inaga yihiin ilmahaas oo rajooyin oo aan shaqaysan karin aamashi ii joogo. ilmaha hooyadood 8 sano joogantay 8 sano idhahdaan ani baan saa ugu mashquulsanay. 4 way anaa ku shanqay kaarkana shanlahaas naga yahay. marka wax aan ku haysanana ma walahaba. waxaan rabaa Soomaalida nima hadii jirta in la ii kaalmeeyo gacan weyn la igu qabto intaas aan u baahanahay. Maxamed iyo caruurtiisa rajooyinka ahay waxay wada seexdaan guri yar oo dhooba ka samaysan. waa guri dhisnaa 20 sano sida muuqatana qarka u saaran inuu dimo. aabe Maxamed waa og yahay khatarta ka imaan karta haddii gurigu dimo laakiin ma hayo meel kale oo ay isaga iyo caruurtiisu ka gabaadsadaan dhaxanta iyo roobka. waana ku khasban yihiin inay ku guda jiraan gurigan khatarta badan. wax guri hoon qabo ma bal guri kan adduunta waayo. Cabdalle Ibraahim Cali waa waayeel kale oo 85 jir ah oo aan lahayn ubad iyo reer midna. waxa uu dhibaatada gaajada iyo waliba hooy la'aanta la wadaagaa dadkii kale ee aad hore u daawateen. reerka waa iga dhinteen. guriga aan ku jirno aantaan waaye waa u jeedeen. bil Ramadaanna waan galnay. afar ma haysti. ehelka raf ayaa afurkii aan laga soo ayaan ka toogsadaa. nin baahan baan ahay. lii soo caabiyaan rabaa. caruur ma lihi. xaaska waa iga dhinteen. wax ii joogo ma leh. garab la'aan baan ahay lii soo caabiyaan rabaa. xaaladayda maalmeed cariiri bay ku jirtaa. wax islaam amaantaano wax aan ka baryaayo waaye. marna aan helaayo marna aan waynaayo waaye. nolosheeda cariiri baa ku jirtaa inaan lii soo caabiyaan rabaa. tanna waa Xaawo Xasan waa waayeel aan lahayn caruur iyo ehel kale. waxay kaligeed ku nooshahay gurigan aad aragtaan. si lamida dadkii ka horeeyay ayay u codsanaysaa caawimo. hooy ma haysti maamo waayeel ahay. afura raba anani afuriya raba. guriga waa da'ateen waa korku duleelo waay. roob ma reebay. baarseefa ku dhisan baarseefka biyo ma reebay usun waa fafaqo usun.
waxa aruur ma dhalin aawisa u baahan ma aha Caasho Maxamed Cabdalle iyo Xaawo oo kaliya dadka ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ee waxa jira tiro intaa ka badan oo ay duruufo nololeed ku haystaan xeryaha qaxootiga. Axmed Cabdullaahi Jaamac, Dhadhaab.